mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka wadani ee gobolka Togdheer oo shir jaraa'id ku qabtay xarunta xisbiga wadani ku leeyahay magaalada Burco ayaa cambaareeyay xariga xubno kamid ah xisbiga wadani oo ay sheegeen in laga soo qabqabtay degmada Qoyte ee waqooyiga gobolka Togdheer iyo deegaanada Balanbaal iyo Nasiye ee koonfurta gobolka Togdheer waxaanay mas-uuliyiintani ku eedeeyeen amarka xariga xubnaha xisbiga wadani hoggaanka xisbiga kulmiye mas-uuliyiinta heer gobol ee xisbigaasi kulmiye iyo barasaabka gobolka Togdheer waxaanay ugu baaqeen xukuumadda Somaliland in xorriyadoodii loo soo celiyo xubnaha xisbiga wadani ee laga soo qabqabtay deegaanadaasi kuna xidhan sida ay sheegeen xabsiyada magaalada Burco arrin Qoyte ka dhacday arrin Balanbaal ka dhacday arrin Nasiye ka dhacday dhacdadaasi aan ku eedeynayno inay ka dambeeyeen mas-uuliyiinta xisbiga kulmiye heer qaran ee Muuse Bixi hogaaminayay iyo mas'uuliyiinta heer gobol ee xisbiga kulmiye inay dhacdooyinkaasi iyagu ka dambeeyeen aan ku eedeynayno runtii xisbiyada tartan baa ka dhaxeeya laakiin kama dhaxeeyo bulshadana laguma kasbado xarig iyo jujuub iyo xabad bulshada laguma kasbado laakiin xeelado kale iyo waji kale iyo arrimo macaan oo kale ayaa bulshada loo qabtay marka waxaan u sheegaynaa xisbiga kulmiye iyo xukuumaddiisa ay sugan ee istiidanayay ee wasiirada iyo madaxda xisbiga ka koobna inaan ummadda lagu kasbanin aburis wartaa waxaan leeyahay laguma kasbado annaga xalka iyagu kaamaha ummadda walaalaha iyaga ee aanu ka sugayno inayna doortaan waxaanu leenahay horumar iyo barwaaqo iyo baraare iyo arrimaha maanta foolxumada ku haya ummadda oo aanu baabiino ayaanu anagu ummadda ku kasbanayna waxa dhacay dad taageerayaasha kamid ah ama mas'uuliyiinta xisbiga oo la xidhxidhayo arrinkaas oo soo noqnoqonaya oo taageerayaashii lagula kacayo iyo laba xubnood oo kale oo midna Nasiye laga soo qabtay midna Balanbaal laga soo qabtay dadka dee laguma kasbado jujuub iyo khasab kulmiye ku noqo laakiin waxa lagu kasbadaa siyaasad hufan taadiyadii dhacay ka dhacay gobolka Togdheer iyo gobolka Saaxil inta u dhaxaysa ilaa Balanbaal ilaa Nasiye loogu geystay taageerayaasha xisbiga wadani haddii ay noqonayso dee cod ama barnaamij noqonayo dad la xiriir dad la dilo cod lagu heli maayaan leeyahay Foodin ayaa waliba dhigayeen xaaraanta in xisbiyada calaamantooda iyo astaamahooda loo taabto xisbigu waa xisbi qaran xisbiyada qarankana waxa loo sameeyay in xukunka aynu ku gaadhno umaynaan sameeyay in durbaan qabyaladeed ku tunno waxaanu sameeysanay in kursiga iyo maamulka dalka lagu wada wanaajiyo waxaan sheegayaa taageerayaasha xisbiga wadani iyo bulshada reer Somaliland in ay u samraan taadigan iyo cagajugleynta faraha badan leh iyo xarigan uu geysanayo xisbiga kulmiye marka ugu horeysa waxaan si adag u cambaaraynayaa xariga loo geystay Axmed Xasan Maxamuud Halac iyo Caawil Cabdullaahi Maxamed tirsan xisbiga wadani oo shalay iyaga magaalada Qoyte xafiis ka furaya amar bixiyay gudoomiye Ramaax laguna soo qaaday gaarigii Xasan Mataan gudoomiyaha xisbiga kulmiye Ali Daahir Maxamed Boos TV Universal Burco.